Sidan aad arkaysaan waa xaaladda caadiga ah ee magaaladan ka jirta. Tanna waa saameynta ay keentay nooc daroogo oo trunk lagu magacaabo. الناس زي هيك Waxayna caan ku tahay magaca daroogada zombiga. مشهد من مسلسل Waxay u muuqdaan dad noloshaba ka maqan, lamaba aha inay adduunkana la joogaan. Dhibaatadan waxay ka taagan tahay xaafadda Kingston. Marka aad soo gashana, waxaad u malaynaysaa inaad soo dhex gashay goob lagu jilayo film horror ah. Waxaad arkaysaa jir qalloocday, cod aan la fahmaynin, iyo nabro aan la daaweyn karin. Cid dadkan caawinaysa ma laha. Halkanna waa suuqa daroogo ee ugu weyn adduunka, waxayna ku taalaa Philadelphia, Mareykanka. Waxaad soo aragteenna darooga qabatin lama dhihi karee, waa burbur bulsho ku socda. Waxaana sabab u ah nidaam xumo iyo siyaasadaha isdiidan. Xaafadan daroogada inta la keeno ayaa la kala iibsadaa, wadooyinka ayaana lagu isticmaalaa. Wax ay la dhuumanayaan ma aha. Waxaana wadooyinka daadsan dad ay daroogada guryo la'aan dhigtay oo qabatimay, iyo kuwa maskaxda beelay oo waashay. Waxaan joognaa Pennsylvania, oo 2 sac kaliya u jirta Washington iyo New York. Labadaas magaalo waxay caan ku yihiin jaamacado iyo dhismayaal taariikhi ah. Balse dhaldhalaalkan waxaa ka dambeeya sheekooyin murugo leh. ولكن في قصة Waxaa ka dambaysa magaalo magangelisay suuqa daroogo ee ugu weyn Mareykanka amaba guud ahaan dunida. سوق مفتوح. Sheekada daroogada waxay dib ugu laabanaysaa kumanaan sano ka hor. راح نشوف قصة Xilligaas oo opium loo isticmaali jiray daawo dhaqameed ahaan. 19 Qarnigii 19aad, Britishka ayaa u adeegsanayay hub ay dadka ku gumaysanayaan, iyadoo Chinese-ka ku qarqinaysay opium. Waxaana dagaalkaas loogu magac daray dagaalkii opiumta. Heer Chinese-ka ay Hong Kong uga baxeen gumaystihii Britanka. Qarnigii 20aad, dowladda Mareykanka waxay caddaysay cadowga ugu weyn ee Mareykanka inuu yahay daroogada. Public enemy number 1 is drug abuse. Ha ahaato heroin, cocaine, iyo darooyinka kale ee qabatinka leh. Waxay sidaas ku soo socotaba qarnigii 21aad, waxaa soo korodhay maandooriye halis badan, waana fentanyl. Wuxuu 50 jeer ka awood badan yahay herointa. وين ب50 Ninkan waxaa nabarkaas ku sababay waa daroogadan uu isticmaalayo. So those are scars from shooting. what was it? It started eating at your skin. Kiimikooyinka laga sameeyo waxaa laga keenaa China. Mexico ayaana u beddesha daroogo dilaa ah. Mareykanka ayayna u iibgeysaa. Waa raqiis si dhaqsi ah kuu qabanaysa, geerina kuu sababi kartaa. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Halkan ayay ka bilaabanaysaa meelaha ay joogaan dadka daroogadan qabatimay. Xilligan la joogo, nooca daroogo ay dadkan isticmaalaan waa trunk. Markay cabaanna xaalad noocan ah ay gelayaan, iyaga ayaana kuu sheegaya in trunk ay ka helaan, maadaama trunk ay si daran hawada u gelinayso. Trunkna waxay ka samaysan tahay isku darka fentanyl iyo psilocin. Psilocin waxaa loo adeegsadaa ku daaweynta xoolaha, gaar ahaan fardaha. Gebi ahaanba ma aha wax aadane inuu isticmaalo loogu talagalay. Natiijada ka dhalata isticmaalkeedana waa tan idin muuqata. Ninkan wuxuu ka socdaa organization diyaar u ah inuu caawiyo qofkii raba inuu daroogada iska joojiyo. ideally Waxayna u qorsheeyeen inay goob daroogada looga nadiifiyo geeyaan oo ay iyaga si gaar ah mas'uul uga yihiin. taxes are they going Maadaama isbitaalada iyo goobaha dhaqan celinta ah aysan ku filnayn in dadka noocan ah ay daroogada ka nadiifiyaan. Fentanyl aad ayay u halis badan tahay, haddana waa raqiis. Waxa qofkan inuu isqalloociyo ku sababayna waa fentanyl iyo psilocin oo la isku daray, trunkna loogu magac daray. Marka hore qiimo hoose ayay ka siiyaan, balse markay qabatimaan qiimaha ay sare u qaadaan, maadaama qofka qabatimay uusan ka maarmi karin qiimo kasta oo ay tahay. stuck down here? Ninkan fentanyl ayuu la qabatimay. Waxa keenay dadkan inay adeegsadaan daroogo ay og yihiin in dhimasho ay ku sababi karto, waa depressionka ku dhacay darteed. Mareykankana xanuunada nafsiga ah ayaa ku badan. Waxaa ku jira kuwa qaar oo waalidiintoodaba ay soo cabi jireen, iyagana hadda caba. Sanadii 2023, Philadelphia waxaa laga diiwaangeliyay 1400 oo daroogo darteed u geeriyooday. Mareykankana waxaa ku socda dagaal aan rasaas loo adeegsanayn. Dadka meelo kala duwan ayay halkan uga yimaadaan, maadaama daroogada si caadi ah loogu iibiyo. Waxayna marba marka ka dambaysa raadiyaan daroogo ka sii xoog badantii hore. Goobaha ganacsi ee xaafadan ku yaalana waxay u muuqdaan kuwa aan sii shaqayn doonin oo goordhow xirmaya. Guryaha halkan ku yaalana waa wada raqiis, maadaama dadka aysan halkan isku aaminin. Booliska 24 sac ayay inta joogaan. Waxa kaliya ay u joogaanna waa in dadka ay ka ilaaliyaan kuwa cabtooyda ah. Sidaas oo ay tahayna, foodada way ka dhacdaa halkan. Halkanna waa meesha ay daroogo kala gadashada ka dhacdo,
halkanna waa meesha loo yaqaano aagga zoombiyaasha cabsan. Sababtana waa in kuwa daroogada ku caba ay u socdaan qaabka zoombiga. Qoftan daroogada isticmaashay ayaa istaaga kariday si la mid ah kan. Meeshan waa sidii god madow. Mar haddaad gashana way adag tahay inaad ka baxdo. 19 jir markaan ahaa, ardayda aan college-ka isla dhiganaynay qaarkood ayaa halkan daroogo u soo doonan jiray. Dibna looma arki jirin. Muddo kadibna waxaa imaan jiray waalidkooda oo wata sawiradooda si ay u baadi goobaan. Hadda labadan qof waa la waayay, qoyskoodana meel kuma oga. Muddo ayaana la laayahay. أهاليهم ما بيعرفوا وين. Intana caadi ayay ka tahay in telefoon laga tuso qof la raadinaya sawirkiisa. They come down here. Philadelphia mar ayay ahayd magaalada ugu qurxoon. Haddana waa meesha ugu badan ay ka soo degto daroogada Mareykanka lagu dhex iibiyo. Waxa qofkan tuurta ka soo saaray waa daroogada uu joogtada u isticmaalayay. Inta ayaan ku dhashay kuna soo barbaaray, waxaana inta laga helaa daroogo $2 ah. Waxa raqiisiyayna waa in meel walba laga heli karo. Kuwaan ogeyno daroogada dawladda ayaa banoo keenta. Oh yeah, for all you niggas that don't know, the government suppliers. Ninkan muddo ayuu wadaa darooga cabista, heer lugta uu ka bugtay. 15 jeer oo isbitaal tagayna waa la daaweyn waayay nabarkiisa. Dhaawacan lugtiisa ku samaysmayna wuxuu la bogsoon leeyahay maadaama unugyadiisa ay dhinteen. Waxaana sababay daroogada uu isticmaalayo. Wuuna ka qoostay caafimaadka lugtiisa, isagoona rajeynaya in mar uun sababteeda uu dhinto. Markuu gacanta ka qaato daroogada, qaybta soo hartay wuxuu ku duraa nabarka si xanuunka uga yaraado. Noocan daroogada ee uu hadda isticmaalayana isaga xitaa ma aaminsana inuu iska dayn karo. Taas oo muujinaysa ilaa heerka uu qabatimay. Wax qoys ah ma laha, da'diisana waa 34 sano. Dawladdana rajo kama laha, maadaama isbitaalka dawladda laga soo ceeriyay. Loona sheegay inuu meel kale la tago lugtiisan dhaawaca ah. Bani aadanba uma arkaan, marka uu nabarka daroogayo, intuu seexdo ayuu kor lugta u taagaa si daroogada uu u duray ee ula falgasho. Waxyaabaha aan inta ku arkay waan la amakaagay, mana filayn in xaalad noocan ah ay jirto. Ninka aan hadda soo arkaynay oo kale, lugtiisa waa eber, cid caawin kartana ma laha. Ha noqdo isbitaal, ha noqdo booliis, intaba wax uma qaban karaan. Waxaana suurtagal ah in mar dhow uu lugtiisa waayo, lagana yaabay inuu dhinto. Wax qoys ahna ma laha, wuxuuna ku dhacay dabinka daroogada. Mar haddaad dabinkan ku dhacdana, qaab aad uga baxdo ma laha. Waana sababta ay muhiimka u tahay in alle aad isku xirto, mar walbana qoyskaaga aad ka agdhawaato. Ninkan waxa gacantiisa sidan u galay waa zaylasiinta fardaha in lagu daaweeyo loogu talagalay, ee uu isagana daroog ahaan u isticmaalay. Gacmihiisana sidii qudaar halowday ayay noqdeen. Hadday isbitaalada wax u qaban lahaayeenna, iyaga ayaan lagu karin in isticmaalka daroogada iska joojiyaan. Wuxuu hadda daroogada u cabaa si uusan xanuunka u dareemin. Da'diisa waa 26, qof caawiyana ma laha, maadaama hooyadiisa ay ka mid tahay dadka daroogada qabatimay. Badankood waxay daroogadan u isticmaalayaan si ay isku ilowsiiyaan dhibaatooyinka ka haysta nolosha dhabta ah. Haddii muuqaalada noocan aad jeclaysataan ii soo sheeg waan idin soo badinayaa. Muuqaalkana like gareeya.